waxaan isleeyahay uun xubnaha inaga maqan hadda uu wasiir Saalax magacaabay ismalihi waxay ku maqan yihiin dhibaato iyo xumaan meeshu bay la martayo nin reer Burcaho Xaaji Cali la oran jiray waa jiray iska mahmaayo xumahay Xaaji Cali inda daaru ka iibsada raashinka markuu inda daara raashinka ka iibsado hawd geeyayo gadbadii uu 200 ku siistay uu 100 ku siiyaa hadaba 100 arigu soo iibsadaayo arigu soo siistaa 200 kun oo dabeedna markuu Burco keenaa uu 100 ku siiyaa dabeedna waa la sheego wax lagu yiri ninkan Xaaji Cali ee magaalada jooga saasi wuxuu kala iibiyaa dabeedna waxaan ku yiri war Xaaji Cali inaad marxuum baa inaad halkan nasaa samaysaa misan ku maxad faa'iida ila xagana tagtaa xagga xag walba wadu carartaa waxna ma faa'iid markaas inaad xarakada uga jeeda xarakada horta nimankan aynu moodayna inay mucaaradad iyo dagaal iyo ku maqan yihiin xarakada nin weyn oo ragga darajooyinkii dalka ugu sareeyay soo qabtay oo leenoo suuqa joogan guddi sameynaya miyaan xarako u ahayn waxaan leeyahay dawladuhu waxay sharciga u sameystaan in wada la maro haddii dawladnimadu sharci weydana fawdadii aynu soo marnay baa dhici karta qof raba dunidan inay fawda dhacdo oo dawladnimada Soomaaliyeed xariiqa gaadhaana ma jirto waxaan uga digayaa fawdada